banaadir maamulka ka dhisan dawladdu waxay ku dhisan tahay isla xisaabtan maamul laga la xisaabtami karo oo dhibka jira ka hadli kara magaalada xamar kama dhisno qofkii laga la xisaabtami lahaa amnigaas wuxuu u cabsanaa jigadiisa u cabsanaa sida hadda aad arkayseen in mataqaana gudoomiye degma ma aqaan aniga wax lagu maagayo oo la xiraa leeyahay sababtoo wuxuu ka sheegay xaaladda jirta xaaladda amniga xamar inay wax iska bedelaan hadii la rabo maqaamka dastuuriga oo xamar waa meesheeda waa in loo dhisaa maamul dadka accountable u ah oo la soo doorto oo dawladda ka madax bannaan maamul dawladdu gacanta ku hayso oo meeyarkeedu markuu madaxa kor u qaado madaxa lagu dhufanayo oo markuu yiraahdo war dhibkaana ay haysta leeyahay adiga waa war badatay meesha nabadgelyo waxba kama qaban karo arinta amniga concerns kaasaan ka muujinay maamuladuna concerns la mid ah ka muujiyeen arinta labaad oo muhiimadda ahayd oo shirka ka soo baxda waxay ahayd dastuurkii lagu heshiiyay oo federaalka aaminsanaa ku dhaqankiisii in laga leexday dawladdu ay u dhaqmayso sidii dawlad mataqaana unitary ah centerku wax walba xukumo muxuu ahaa ii sheeg waxay doonto ay sameynayso dastuurkiisi aan loo jeedinaa shaqo looga hayaa oo cid laga la tashana aysan jirin waxaan cabsi ka qabnaa si tartiiba xuquuqihii muwaadinka in tartiib meesha looga saarayo xurriyatul qowlka in qofku uu wuxuu raba sheego oo dawladda yiraahdo dhibkaanan qabaa waxay ku taalaa dastuurka annaga hadda miidiyi inta aan ku ballansana aawe soo banaanka lagu micilin been miyaa sheega soo lama bixin hadda xurriyatul qowlka dastuurku qoraayo la sheegayo oo dastuurka ku taal aawe dastuurkii hawsha laga wadana dawlad goboleedyadu aaday mataqaana ay walwal uga muujiyeen qodobkaas qodobka labaad waay